بسم الله الرحمن الرحيم دمان مدحدي lagu casuumay shirka way wada joogtaa maanta oo bisha 3 saaxiib ay ahayd inuu furmo welina qabanqaabadiisii baa lagu jiraa waxa dib u dhac ku yimid madaxweynaha koonfur galbeed oo shalay halku imaan lahaa tacsiya awgeed u baaqday asna maanta na soo gaaray alxamdulillah marka shirkii waa si wanaagsan oo kulli waa laga soo wada qayb galay wufuudi waa timid afartii dawlad goboleed Jubbaland hadiyada gobosha dhigtay marka shirkaas waa wanaagsan yahay waxa umada Soomaaliyeed rajigeliyo ku faraxsan ka soo baxaan oo rajaynayna muxuu yahay ajandaha shirku ajandaha shirka macruuf waxa uu weyn horta la socota waa tii hore golaha iskaashiga dawlad goboleedyada loo sameeyay taas oo macnaheedu ahayd in muqarramada Soomaaliya lagu xoojiyo dawlad goboleedyadana ay iska kaashadaan arrimaha ayaga wada khuseeya dhaxdooda dawladda dhaxana lagu garab istaago waajibaadkeeda si ku gudan lahayd sida waajibaadada la kala yahay dastuuriga wixii ay dawladda dhexe leedahay loo daayo dawladda dhexe wixii dawlad goboleedyada leeyihiin loo daayo waxa ay tahay in laga wada tashadana lisla qorfeeyo oo laga wada tashado jidada golaha loo dhisay saas ay ahayd muddo sanad ku dhawaad bay hadda dhisan yihiin marka qiimeyn balinta la sameeyay intay golaha jireen waxyaalihii iyo himiladii laga lahaa maxaa qabsoomay maxaan qabsoomin haddii qabsoomi waayaan maxay tahay caqabada waa ajandaha kale oo muhiimka noqon kara waxa weeyaan doorashooyin baa soo socda dhammaan dalka oo dhan waa la kala horeeyaa dawlad goboleedyada ayaa horeeya intooda badan dawladda dhexe nafteeda haddii labadii sano almost waa dhamaatay marka bal doorashooyinkaana sidii loo wajihi lahaa iyo qaabka la iskaga kaashan karo oo si iyadoo cidna aynu ku fikirin in muddada lagu daro inay si wanaagsan u dhacaan ayna waa laga wada hadlayaa arrimahaas iyo arrimaha kale ba ajandooyinka kulli wada ogaan doontaan iyo wixii shirka ka soo baxa marka laakiin micnihiisu shirkan waxa weeye in la yiraahdo xaaladda dalkan qiimeeyno xilliga kala guurka doorashooyin baa soo socdo ciidamada ajnabiga dalka joogo muddo dheerna joogay wax qabadkoodana la dhaliilay sidee Soomaaliya amaankeeda ula wareegtaa annaga dawlad goboleedyada maadaama aan deegaanadan u dhaarano mas'uul ka nahay maxaanu qaban karnaa oo iska kaashan karnaa arrimahaas oo dhan baa la rabaa in la falanqeeyo waaye waxaa jira warar laysa dhex marayo oo ah in shirkaas ay ka soo bixi karaan qodobo maxaan ku idhahdaa liddi ku ah dawladda tusaale ahaan in dawladda dhexe xiriirka loo jaro in muddo ahna waxbaad ka cabanayseen markay noqoto dhinaca dawladda haddii aad tihiin gaar ahaan idinka Jubbaland iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada kaleba miyay jirtaa arrintaasi inaad damacsan tihiin dawladda dhexe inaad xiriirka u jartaan maya horta taa maba jirto dawladda dhexe annagaba ka mid ah hay-adaha dawliga ayay dawlad goboleedyada ka mid yihiin way jirtaa wada shaqayn la-aan ka dhaxayso hay-adaha dawladda dhexe ama wasaaradaha ha ahaadeena ama hay-adaha amniga ha ahaadeena iyo hay-adaha iyaga wasaaradaha iyo amniga dawlad goboleedyada taas oo Soomaaliya maadaama nidaamka federaalku ku cusub yahay hay-adaha dawladda dhexe ay doonayaan inay u dhaqmaan sidii dawladdii dhexe ee dalka ka talin jirtay xilliyadii lasoo dhaafay ay aqbali la yihiin habka nidaamka federaalka iyo habka loo wada shaqayn lahaa hay-adaha dawlad goboleedkana ay leeyihiin maya shaqadan annagaa leh adinku taasaad leedihiin sideen isu kaashanaa sideen isu ixtiraamnaa taasoo mar badan dadka ay u bedelaan in loola joogo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo in maaragta arrintaas looga soo horjoodo runtii taa waa ka fog tahay saad la socoto annaga berigwet waxaanu dhaliilnay taliska xoogga dalka taliyaha iyo taliya ku-xigeenka hadda xilka laga qaaday horta waan ku weydiin doonaa dhinaca dadka in badan ba waxay u fasireen madaxweynaha loola jeeda madaxweynuhu saan u dacwoonan warqada qornoon madaxweynuhu khaladkan baa jira nala arag soo fargeli waayo qodobada aad isku haysaan ee gaarka hoos baan u galanaa laakiin waxaad leedahay shirkan haddaan ku ekaano shirkan wax dawladda liddi ku ah kama soo baxayaan baad leedahay talooyin waad soo jeedin kartaa maya shirkan ujeedadiisa ma aha in dawlad Soomaaliyeed lagu wiiqo in dawlad Soomaaliyeed oo jirta lagu mucaarado ee macnihiisu waxa weeye sidee dawladda Soomaaliya oo maanta jirta ay ku guulaysataa guud ahaan ama federal state ha ahaato ama dawladda dhexe ha ahaato sideen u dhaqaaqnaa sidee maxaan maaragtay maskaxshiilkaas baa la iskugu yimid ajanduhu nina ma xambaarsano nina gogasho uma dhigin aan xiriir ku jirna dawladda dhexe waxaa jiray qodobo shirarkii hore aad wada yeelateen maamulada
gobolada haddaad tihiin iyo dowladda dhexe qodobo muhiimaad ku heshiiseen shirarkii ka dhacay baydhabo kuwii ka dhacay magaalada muqdisho qodobada lagu heshiye waxaa kamid ahaa khayraadka, waxaa kamid ahaa isku dhafka ciidanka, waxaa kamid ahaa dastuurka xilliga la dhammaystirayo, nooca doorashada, qodobo waaweyn oo muhiima ayaad ku heshiiseen. waxaad ka cabanaysaan ma qodobadaasoo la fulinba mise waa waxyaabo aan weli laga heshiinin ood ka hor dhacaysaan? exactly aad baan kaaga mahad celinaya si aad ula socota. wixii hore loogu heshiiyey oo aan fulin maxaa sabab u ah inay fuli waayaan eedeeda yaale waa laga wada hadlay. wixii aan hore looga heshiinin qabyo ahaa oo hay-adaha dawladda dhexe iyo hay-adaha iyaga dawladda goboleedyada ay isku hayeenna sidee loo wajahaa. dastuurkan 100 qodob ka kooban 20 sano ku dhawaadka la wareejinayo oo mashruuca isu bedelay oo Soomaaliya maanta dastuurkeeda waa qabyo, waxba lagama heshiinin, waa qabyo una arrinta ay tahay. maxaa sabab u ah in lagu heshiin waayo oo dhamaan waayo? waxaalahaas oo dhan waa suurtagal in isla soo qaado, dhammaantoodna waa toosin iyo qarannimada Soomaaliya si lagu xoojin lahaa. waa dastuurka haddaan ka hadalno, dastuurka waxaa jira guddi madax bannaan oo qaabilsan dastuurka dib u eegistiisa, waxaa jira guddi wada jira oo labada aqal ee baarlamaanka ka tirsan. dadkaas ayaa soo diyaarinaya, waxay kusoo celinayaan guriga aqalka baarlamaanka, waa la akrinaya, waa la isla turxaan bixinaya. miyaan la dhihi karin dadkii hawshan loo xil saaray way ku maqan yihiin? macruuf waa iyadoo saa sheegaysa guddiyadaas oo dhan ay jiraan. guddiyadii oo dhan iyo waxqabadka wuxuu isu bedelay shirar aan waxba ka soo baxaynin oo marna dalalka dibadiisa lagu qabto, marna dalalka gudihiisa lagu qabto, oon horu socodna lahayn. qodoba inta lagu wada heshiiye xaggaa la wada dhigay oo laga gudbo kuwa kaloo dhimana lahayn. haddii aan wax wada leenahayna dadku wax wada leeyihiinne dastuurka qodobo waxaa kamid ah in siyaasiyan looga heshiiyo oo guddiyada iyo dadka farsamada ayna go-aan ka gaari karin. marka bal kuwaana in la wajaho, la caddeeyo, la yidhaahda kaa iyo kaa iyo kaa waxay u baahan yihiin go-aano siyaasadeed oo xubnaha dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda dhexe iyo dowladda dhexe go-aanka ragga gaari karo ay ka wada fariistaan. waxaana bal aan dhammaanaynin mashruuca isu bedelay muddada dheerna dab wareejinayeyna see loo soo gaabiyaa si dastuur ummadda wada leedahay, life documenti ah ama documenti qof walba xaqiisa difaaci karo ama uu maaragtay cadaalad ka heli karo, sidee loo helaa? marka tuhmo fara badan waxaa jiraya in dastuurka qoloba ay rabto waxa iyada favor u ah inay ama iyada u danaynayo inay geliso waxna ka bixiso. waxyaalahaas oo dhan waa la falanqeyn doonaa. dabcan wixii laisku waafaqana waxaa loo gudbin doonaa madaxda dawladda dhexe oo la dhihi doonaa anaga sidaan bay nala tahay, bal wax ku dara wax ka bedela. way idinku gaar ahaan baraha bulshada iyo shaki iyo aan laga hordegin linyaan lagu dhiijinin wixii wanaagsan baan leenahay, taasaan ku talinayna. idinku Jubbaland ahaan maxaad ka tabanaysaan dawladda dhexe ama hoggaankeeda? annaga Jubbaland dawladdan waa taageernay, waana taageersannahay. xal kalena maba hayno oo aan ahayn in Soomaaliya ay dawladnimo hesho. aragtida iyadana waa inuu qaranka Soomaaliyeed guulaysto. laakiin waxaa jirto waayada dambe waxaa soo badanayay faragelino looga imaanayo hay-adaha dawladda oo waxay xaq u lahayn iyo deegaanadii dadka la kala qaybinayo, dadkii la abaabulayo. adoo raaliya madaxweyne ku-xigeen, waxyaabo oo cad oo dhacay oo la caddayn karo oo la xaqiijin karo oo faragelina ka yimid dawladda dhexe ii sheeg. matalan mar raba hadda inaan midiyaha 1 iyo 2 ka yidhaahdo hortaan ka wada hadalno oo waxaa noo qorshaysan hore inaan u weydiisanay madaxweynaha iyo prime ministerkaba inaan ka wada hadalno annaga tabashadayada iyo wixii aan khalad ku aragno. laakiin waxyaalaha hadda ugu waaweynaa dadka ay dareemeen waxaa kamid ahaa taliska xoogga dalka oo kale. taliska xoogga dalka halkan qayb baa jirta 43 la yidhaahdo. marka qaybtan uu jirto oo taliye iyo baanduule iyo habdhismeed leh bay waxay abuureen saraakiil kale oo qaybta ka amar qaadan oo deegaanada qaar ay ka abuureen oo la arkay iyagoo dadkiisa kale u abaabulayo. waxay qaadeen qalab ciidan oo ay geeyeen meel ciidan qaran uusan joogin, taas oo uu shabaabka ka faa'iidaystay, dadkana ay u arkeen in jabhado hor leh lagu abuurayo. waxay sameeyeen inay madaxda sarsare matalan ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo kale halkii Jubbaland waxa ay la damceen ama ay ka kaalmeynayaan markay daadadka ay dhaceen iyo fatahaadaha, halkii annaga ay nagala soo xiriir lahayn inay guriga daaqada ka galaan oo ay degmooyinkii iyo deegaanadii si gooniha ula macaamilaan iyadoo aan lahayn guddi midaysan oo deegaankaas oo dhan mas-uul ka ahaay oo la qabtay.
haddaan taas kaa dhex galo meelaha hadda aad leedahay ciidan qaran oon joogin baa ciidan la geeyey waxaa u malaynayaa inaad ka wado magaalada ceelwaaq ciidan tiro yar baa joogay in muddo ayay joogeen wayna ku dhibaatoodeen al-shabaab ayaa mar walba galo oo weerara intaysan dowladdu soo gaadhin oo dowladdu aysan isku dayin inay wax ka qabato arrintaas maxaa idinku wax uga qaban weydeen maadaama jubbaland ay hoos timaado ceelwaaq macruufow saad arrinta ugu dhigtay ma ciidanka halka jooga oo ku rafaadsan waa ciidan daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ah bishaare yarna helo xaaladaana ku sugnaa haddii ayba tahay inaan dowladda annaga riboorro u gudbinay oo niri halkaa ciidamaa jira dayacan in wax laga qabtaa la doonayaa sidee wax looga qabanayaa qaybtii 43aad ee jubbaland u qaabilsaneed xoogga dalka taliskeed inta lala soo xiriiro in la yidhahdo halkaa taga wax ka qabta waxa ka jira waxeeya miya mase waxaa laga abuurayaa shaksiyaad ama bar ciidan oo taliska xooga ku xiran oo ceelwaaq laga abaabulay marka waxaas oo dhan si khalad ay u dhaceen marka haddii dowladda federaalka qodobka inagoon ka bixin dowladda federaalku gaashaandhigga arrimaha dibadda siyaasadda maareynta masiibooyinka gudaha oo tan uu socday ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxyaaba dastuurku u ogolaanaya weeyaan meesha aad ka gaabisaan ama dhaqaale ahaan aad wixii wada gaadhsiin weydaan baahidii dadka hadday dowladdu soo gasho wax idinla qabato ma wax wanaagsan ba mise waa wax xun haddii waxayna lala qabto waaba haddee qarankiibay mas-uul ka yihiin oo ayaga dhaqaalihii baa soo maray hadday masiibo dhacdo dowlad goboleedka guddi masiibooyinka ayay qabatay deegaanado dhanna waa la rejistareeyey waana la tagay wax baan isku daynoon annaga diyaarinay waxaana idiin sinaaye wixii adinku aad gaari kari weydeen ku qabto aan idinla aragno intaas oo dhan waa in albaabka laga soo gala ma ahane waxaan u arkaynay annaga waxqabad maan arkaynayna dulmi baan u arkaynay saasayna ahayd runta xaqiiqda tan ciidanka qayb baa jirto taliyo qayb baa u jooga wakiil ah talis leh marka jaraakiyadii ciidankana waa taqaanaa adigu naftaad inkastoo haddii ciidan ahayn nidaamkii sistamka waa taqaanaa haddii taliskii ciidanka hadday intay wixii keenaan ay yidhahdaan halkaa dhibkaas ka jiro arrintaa ku xallaya ama guddigan saraakiisha kaxeeya oo taga waa waxaan anaga soo dhaweynayn oon jecleynba oo nagu qayli dhaaminayn ee laga sameeyo intaasoo dhan mayna samaynayna qalab ciidan bay qaadeen maamulkii deegaanka ay u dhiibeen ayadoo halkaa ciidan joogin qaybo kamid aha shabaabka gacanta u galay marka wax cad oon ka hadlayna anaga waxa weya waa khalad dhacay weeye ma ahan waxqabad annaga waanu soo dhaweynaynaa 100 kun oo ciidan hadday deegaanadan ka abuuraan oo cadowga ugu dagaalamaan waa waajibaadkooda waa waxaana gacan ku siinayna eednaan u jecelnahay in la sameeyo gaar ahaan madaxweyne ku-xigeen adigoo raalli madaxweyne ku-xigeen gaar ahaan aad baad ula socotaa xaaladda ceelwaaq ciidanka halkaa jooga aad baad ula socotaa ciidan tiro yar oo dhowr jeer ay al-shabaab soo weerareen dad fara badan ay ka dileen saraakiil ay ka dileen habeenkii shabaab ay soo galaan magaalada subaxdii ay ciidan ku soo laabtaan habeenkii ay ka laabtaan dhinaca Kenya si ay u dugsadaan ciidamada Kenya ciidan noocaasaa joogay oo ma aha bilo waxaan ka hadlayno sanado ayay ahayd 5 sano 6 sano uu jiray maamulka Jubbaland maxaa halka ciidan loo geyn waayay maxaa al-shabaab looga difaaci waayay ugu dambeyn markay dawladdu soo faragelisay maxay dhibaato ku noqotay faragelinta al-shabaab iyo weerarada al-shabaab maxay dhibaato u noqon weyday maxay u damqi weyday maamulka Jubbaland su'aalaha dadku isweydiinaya waa kuwaas macruuf zeelada fiidin horta xogaal baariga ninka hadda la hadlayso waa ninka gobolka ka soo jeeday xogaalka aniga shakhsiyan ana madaxweyne ku-xigeen ana ceel waqtigay habeeyay maamulka u dhisay dhex taagnaa og waxa ka jiro xaqiiqda ciidanka iyo dibka ka jiro iyo tabar la'aanta waa wax cad weeye waa wixii annaga aanu gudbinay oo niri hana laga gacan siiyo laakiin wax haddaanu ka hadlayna maaha gacanna laga siinayo ciidankaa inuu dhismay in magaalada la difaaco oo ciidan loo helo ma ahayn wax ka gedisan baa meesha laga waday laga damcay waxaanu ka hadalnayna saas ay ahayd sidaan annaga uga hadalnay mayna u dhacday laakiin ciidanka iyaga meesha ku dhibaataysan tirada yar qalabkaan haysanin annagaan awood u weynay anigoo madaxweyne ku-xigeen aan tagay oona kaalmeyn karin dawladda aanu nidi wadaadinka dhaqaalihii caalamkan idin imaanaya qarankana mas-uulka ah ciidamadana mas-uulka ah ciidankan nala qabto iyo qorshihii loogu talagalay iyo qaybtii u xilsaarnayd oo wax loo marin lahaa intaba lama damcin lama samaynin hindiso shaksi maskaxdiisa ku jiray iyo ujeedo kale oo dadka dhexdiisana ama kala shakiyaan ama la kala qoqobo qolyana la hubeeyo qolyana laga tago waxaan macno samaynaynin waa gartay Soomaali hore ugu soo daashada meesha laga abaabulay marka sida hadda adiga u dhigayso waa dad badan oo Soomaaliyeed waa arkaan ku khaldan yihiin ma aha xaqiiqdu saas annaga ciidan la dhiso
la tababaro la qalabeeyo wax allay waxa aanu maxay ahayd aanu raadinayno oo aan u dhibanayno intaaba weeye ma ahane wax ka gedisan maaragtay meesha ka socday waxaan ku niri kaaliya qaybtiina iyo adinku israaca meeshaan wada tagno xara ciidan aan ka furno ciidama difaaca meesha inta ciidamadaas nooga tababarayana nagu kaalmeeya aanu keenno gacaal waaqc ciidamo badan baa ku firirsan tuulooyinka jooga marka amsom ma joogto amsom mandate-ka in lala hadlo dawladda dhexe ayay mandate-kada tahay ciidamada amsom oo tuulooyinka jooga ku qasba inay degmada dib u degaan oo intaan ciidamo ka diyaarsanayno ilaa amsom adinka ayaa u ah maxay ahayd accountability ama toos u ah waxa intaas aad sheegayso dhan waa intaan annaga aanu ku dacwanayna laakiin waxaan annaga ka hadalnay intaa wax ka gedisan bay ahayd xaqiiqna ah waayo qodobka kale ku saabsan horta dowladda Soomaaliya maamul goboleedyo haddii aad tihiin dabcan deegaano iyo dad baad matalaysaan marka inaad xaqiina ka heshaan dad badan way idinku raacsan yihiin dad badanna inay idinku diidayaan ilama aha laakiin markaad dhinaca kale ka eegto dowladdani waa dowladdii aad soo dhisteen xildhibaanada soo doortay Kismaayo Baydhabo Cadaado Garowe Jowhar ayaa lagu doortay golihii wasiirada iyo qaabka lagu qaybsaday waad ogtiin xildhibaanada sida lagu soo doortay dawladdan iyo dawladihii ka horreeyayba waa laga wada dharagsan yahay arrintuma waxa weeyaan deegaanadii oo aan wax ka helayn dawladda maadaama dawladdii loo wada dhan yahay gobol kasta uu ku jiro hadday xildhibaan tahay hadday golaha wasiirra tahay hadday xubin kasta oo dawladda ka mid tahay waa loo wada dhan yahay arrintuma dawlad goboleedyo ay wax ka maqan yihiin ba mise waa madaxda maamul goboleedyada oo ay wax ka maqan yihiin sababtaan saas ku weydiinay waxa weeyaan doorashooyin ayaa soo socda koonfur galbeed u soo horeysay Puntland baa ku xigta Tiina ku xigta Hirshabeelle iyo Galmudug baa laga yaabaa inay iyagu doorashooyin ka dhacaan arrintu waxay ku saabsan tahay dib u soo doorashada iyo sida ku badbaadi lahaayeen madaxda maamul goboleedyada sidii marka loo soo dooran lahaa mise waa wax uga maqan iyo xaq uga maqan dawladda dhexe si fiican baa su-aasha soo dhigtay waxaan jeclaan lahaa iyadoo la munaafaqadeyn inaan kaaga jawaabo annaga waxaanu ka hadlayna waxa weeyaan dawladda dhexe waa dawladdayadii baarlamaanku way ka kooban tahay Jubbaland baarlamaanka laga doortay 50 in ka badan buu ahaa waa joogaa waxaanu ka hadlayna waxa weeyaan wixii inaga dhaxeeyay oo magaca dawladda dhexe ay noo matalaysay ayayna deegaanada aanu ka soo jeedna helaynin hadday xagga ciidanka tahay hadday xagga dhaqaalaha tahay hadday xagga deeqaha waxbarasho tahay hadday xagga maxay ahayd risaasta iyo zaanada ciidan oo la iskaga difaaci lahaa nimanka nabaddiidka tahay waxa allay waxaan anagu xaq ugu lahayn baanu ka helaynin waxaanu ka qaylinayna waxa weeye war noo qaybiya waxaanu xaq u lahayn oo deegaanada u qaybiya oo mashaariicda qaybiya oo deeqaha qaybiya oo waxa emergency-ga lagu helo qaybiya arrintuna xamar maahan inaad xamar iska daba wareejisaan oo ay nabadna ka keeni weydaan horumarna ka keeni weydaan dhaqaalihii dalkan halkaa ku baabisaan sax maahan annaga Jubbaland baan nahay tekadaan maamulnaa airboraan joognaa intaba dawladda dhexe ayaanu u daynay cidna kama kirayn cidna kulimaana heshiin waxaan niri waajibkaas waa waajib ay dawladda dhexe leeda waa ku ixtiraamay waxaad idinku xaq u leedihiin qabta annaga inala xisaabtama waxaan xaq u leenahay nagu control oo inaad madax noo tihiin aamina oo waxaanu qabanno ku faana birita waxaad tidhaahdaan intaanu halkaa joognay maamulka Jubbaland baan kaalmaynay jilib iyo bu'aalaan xoreynay intaa adinkay taariikh idiin noqonaysaa adinka ayaa iskale guusha koowaad haddii aan wax ku guulaysanin haddaan khasaarnana khasaaraha adinka ayaa kow ka noqonaya bal fahma inaad madax noo tihiin oo intaa yeela weli waxaan ku hayna xagga doorashada annaga qaar baa idaacadaha ka sheegay Jubbaland waxay rabtaa inay doorashadii ku darsato in la doorto ma rabto waxaanu leenahay annaga doorashaanu qabanaynaa waa tartamaynaa dadka waxa nala leh nala tartamayna cidda heshaan kula shaqaynaynaa wakti kuma darayno marka bal inta taa laga gaarayo kaaliya nala howlgala deegaanada maqan nala xoreeya dadka nala mideeya qabyaalada nala aasa dastuurka dib u eegno wixiina wada anfacaya oo dhan aan samayno kadibna hala tartamo annaga legacy uma rabnaa inaan ka tagno oo nidhaahdo systemkaan meel dheer aan kasoo bilownay meeshaanu maraya hala kala dhaxlo marka inta in la isla fahmo wey waxaanu doonayna